waxaa maantay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug laga dukaday salaad roob doon ah oo Allah subxaanahu wa ta'aala dadka deegaanku ay uga bariyeen si wada jir ah inuu abaaraha ka dulqaado. Salaada roob doonta ah oo hore ay u cilaamiyeen maamulka degmada Cadaado iyo culimaa u diinka deegaanka ayaa lagu dukaday barxadda madax waxaana ka qayb galay dukashada salaadan culimada deegaanka oo khudbadooyin diini ah halkaas ka jeediyay dadkana ku wacdiyay kuna baraarujiyay in Allah subhanahu wa ta'ala la baryo xilliyada sidan oo kale abaaruhu u soo laabtaan. yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ayyuhal muslimuna ibadallah idha araftum wa alimtum أنكم مضطرون إلى رحمة ربكم وغيثه غاية الضرورة وأنه لا يكشف ضركم ولا يغيث شدتكم إلا الرحمن الرحيم الجواد الكريم فارفعوا قلوبكم وارفعوا أيديكم إلى ربكم مستغيثين به آملين لفضله راجين لكرمه وقدموا بين هذا الدعاء توبة نصوحا إلهي اللوغم هذيو أرنتاس أيضا لأن محايا لي هذه النبي صلوات ربي وسلامه عليه يدقن كيسي أيا سيدان مركا روبك أوداهو oo dhibka iyo hawkarka iyo kulaylku uu yimaado nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh wa uu bixi jiray ummadiisii saxaabada Allah subhanahu wa ta'ala ayay hor istaagi jireen rabbi ayay baryi jireen haddii uu roobku yimaado allahna siiyo waana ka rajaynaynaa wa falillaahi alhamdu wal minna hadduu imaan waayo in la soo celceliyo oo roob doonta la soo celceliyo oo marna ilaahay baryihiisa aan laga quusan ayaa la rabaa oo la doonayaa insha Allahu ta'ala ilaahay roob khayr qaba hana siiyo haddii aan helno waan helnay haddii uu roobku dib dhacona ilaahay nagama dib dhige waan soo celceli doonaa salaatul istisqaa maxaa yeelay Allah subhanahu wuxuu leeyahay faqultu astaghfiruu rabbakum إنه كان غفارا نبي الله النوح الله أسقو كورمي وحيري نبي النوح وحيري ربي وأمدي وحان كؤري والربي دم بداف ويديستا إلهي ومد ذنوب تدافا ربع ركايدن كاكينه gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toortoole oo warbaahinta la hadlay kadib tukashadii salaada ayaa sheegay in dadka deegaanka looga baahan yahay inay Allah u laabtaan sidoo kale waxa uu booriyay in dadka deegaanku ay intay awoodaan suuliyaan maandooriyaha asagoo ugu baaqay dadka isticmaala inay iska dhaafaan Allahna u laabtaan sidaad u jeediinba dadku way isku soo baxeen waxayna iskugu soo baxeen salaadul istisqaa maadaama xilli abaara la joogo dhibaato fara badan ay taagan tahay deegaanka dhib badan ay ka jiro roobka xilligiisa aan hadda u jeedin laakiin aan aaminsanahay in Ilaahay na siinayo oo rajada Ilaahay aan markasta ka rajeynayno iyadoo adana abaara haddana waxa dib u soo laabtay ayixi oo geediyo ayo abaaru geediyo xaganaya waa dhibaato kale waa musiibooyinka cusub ay ka mid tahay markaas maanta waa salaatul istisqaa isku mid waana tukanay haddii roobka Ilaahay na siiyana alxamdulillah hadduu lagu daahana waan ku celcelinaynaa insha Allah sidaas ayaan isku ognahay barnaamijka hadda dalka dhibay waa khamrada iyo taamowga iyo xashiishka dadka oo dhibaatada ku hayana waxa ugu badan dadka da'yarta ah oo ama iskuulaadka dhigta ama dugsiyada dhigta ayaa ugu badan rag iyo dumarba barnaamijkaasi finno ku haya waxaan rabnaa marka in laga digtoonaado anaga ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karna waan ka qabanaynaa jihaadaan kula jirnaa qof kastoo dadka ka mid inuu cunugiisa ka ilaashado macallin walba inuu iskuulka ka ilaasho in dugsiyada laga ilaasho waan rabnaa intaas aan ku baraarujinaa Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta Goobjoog Cadaado